maalinku waa sabti 26 bisha July 2025 barnaamijkeena maanta insha Allah taala waxaan ku soo qaadaa dhigi doonaa ninka directorka ka ah hay'adda jinsiyadaha iyo socdaalka ee dalkan Mareykanka oo soo jeediyay in imtixaanka dadka laga qaado shahaadada qaadanaya ama dhalashada dalka Mareykanka uu yahay mid aad u fudud ayna qorsheynayaan inay adkeeyaan. haddii aad nagu cusub tahay marka don't forget to subscribe to the channel haddaa hore noola joogtay like and share the video sidoo kale facebookeena follow dhac ku sii insha Allah waa idinka mahadcelinaya. haddii aan ku bilaabo ninka odayga ah ee loo yaqaano Joseph Edlow ayaa waxa uu soo jeediyay in imtixaanka haddeer sida uu yahay wax basiid ah oo aad u fudud qofka inuu qaato dhalashada dalka Mareykanka. waxaana uu soo jeedinayaa in xoogaa la yara adkeeyo oo dadka lagu ama su'aalaha lagu badiyo ama sheekada ha lagu adkeeyo ee su'aalaha loo soo qaadanayo laakiin sida hadda ay tahay buu yiri wax kuma socon karaan. haddii aan kaga warramo marka hadda sida ay tahay waa 100 su'aalood oo ku saabsan dalkan Mareykanka taariikhdiisa iyo waxyaabo la xiriira dowladnimadiisa oo qofka uu soo xifdinayo markuu soo xifdiyana immigration officerka ayaa waxa uu kala soo baxaa 10 kamid ah 100 su'aalood oo randomly ah meeshuu rabo kala soo baxaya 10 su'aal marka uu ku weydiiyo 6 waa inaad saxdaa iyo wixii ka badan. haddii aad 6 ugu horeeya aad saxdo waa baastay haddii dhaxdan aad wax ka gafto adiga 4 baa choice aad xaq u leedahay in aad gafto so 6 waa inaad saxdaa out of 10ka. so haddaad 6 saxdo waad baastay markaas qoraalkii yarka ahaa iyo waxaad galaysaa iyo su'aalihii oo afka laga weydiinaa iska caadiga ah baa galaysaa. so haddeer isaga marka wuxuu arkaa in arrinkan uu yahay arrin aad u fudud oo qof kasta uu baasi karo marka waa in lagu yara adkeeyaa buu yiri. haddii aan idinkaga taariikheeyo tookadii hore ee uu joogay madaxweyne Donald Trump imtixaanka waa la adkeeyay waxaana laga dhigay in qofka meesha 10 hadda lagala soo baxo 120 lagala soo baxo 20kaasna waa in uu dhawal baa laga dhigay labadaba 20kaasna waa inuu 12 su'aalood uu si sax ah uga jawaabaa qofka. markii uu imaaday madaxweyne Biden dib baa loo soo jaray waxaa laga soo dhigay 10kii 6 su'aalood oo la saxayayna waa lagu soo koobay sheekadii iyada ahayd. marka hadda ay waxay rabaan haddana inay dib ugu celiyaan meeshii inkastoo uu markii la weydiiyay oo la dhahay ma 20kii baa dib ugu celinaysaa uu ka yara mermeeray waxa laakiin uu ku nuxnuxsaday in sida tan haddeer uu yahay uusan sii ahaanaynin. marka maxaa adiga qofka aan xareysanin citizenshipka hadda kula haboon haddaad rabto aad kalsooni badan isku qabin inaad imtixaanka haddii 20 laga dhigo aadan baasi karin in hadda soo qaadato ayaa ku haboon oo aad imtixaankaaga gasho intuu 6 su'aalood laga jawaabayo uu yahay oo 10ka laga soo qaadanayo. ninkaas odaga ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday in 10kan question iyo existing systemka haddeer jira ay yihiin kuwo aad iyo aad ugu fududeynayo in qof kasta oo dalkan imaanayo oo raba inuu qaato markuu qaato green cardka kadib raba inuu qaato dhalashada dalka Mareykanka ay tahay mid aad u fudud. so waan adkeynaynaa buu yiri waxaan rabnaa inaan dadka aan hubino in ay yihiin dad vested ku ah dalkan oo inay timekooda geliyaan oo ay ku noolaadaan oo wax kasta oo ay ku qaadanayso dhalashada inay qaataan inay dad diyaar u ah oo raba oo dalka jecel oo ka shaqeysanayo wax ka qabsanayo inaan qaadano dadka kale oo soo iska ana aan maartay ka ceyrina meesha ayuu yiri. so easy way wada haddeer in qofka uu soo xifdiyo 100 su'aal and then 6 su'aalood uu si easy uga jawaabo. so we're not the spirit of the law buu yiri sharciyada ma si fiican uma dabaqayso dhahay sida haddeer aan ka rabno. so nimankan waxa waaye waxay ka tixraacayaan tookadii hore ee Donald Trump uu joogay imtixaanka saas loo adkeeyay 20 su'aal baa laga dhigay 12 baa laga jawaabayay. xilligaas waxaan arkay aniga nafteeda dad badan oo imtixaanka ku soo dhacay waana la yaabanaa kadibna waxaan arkay in xilliga iyada ah waxaan arkay dad fara badan oo imtixaanka ku soo dhacay waana la yaabanaa sababta keentay because qof walba oo inta imaada dadka shaqo iska aadaan waa dad howlo iyo beelal iyo waxba iska ka xiriira marka imtixaanka inaad ku baasto ama aad baratid baaba kugu adkaanaysa ama luqadda aad barato sida carruurta yaryar oo kale iskuulka iska aadayo uma fududa dadka waaweyn especially. so dadkaas in lagu adkeyn doonay hadda ay u badan tahay ninka odayga ah maadaama isaga uu yahay ninka gacanta ku haya oo directorka ka ah dowladdeena JD Vance madaxweyne Trump maxaan ku radaa Kristi Noem
ninkan la yidhaahdo Tom Harmon raggan dadkan oo dhan waxa waaye waxay isku wada raacsan yihiin in dadka immigrantska ah si ay dhalashada u qaataan in lagu yara wada adkeeyo oo gaanjooyinka loo yara dhuujiyo marka hadda chance way haysatid imtixaan gal qaado imtixaankaaga oo baashaada buuxso haddii marka la bedelo aad ku soo aadana de si fiican waa inaa u istari garaysaayo aa isu diyaarisaa boqolkaas question 20 haddii lagala soo baxo haddii 20 ka dhigaan haddii ka yar ka dhigaanba waxaa ogaataa in baashan loogu talagalay in la kordhiyo un keliya ama la adkeeyo oo wax kale lagu soo dari doono so we don't know waxay ku soo dari doonaan laakiin waxay hadda ay soo jeedinayaan arrinka isaga ah don't forget inaad sii share garaysid videoga intaas ayaan kaga baxaynaa insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh